barnaamij garaadso maanta booqashadiisu waa beer waxaan rabnaa inaan wax ka ogaano beer waxa ay tahay iyo waxa laga barto soo dhawaad caruurey barnaamijkeena maanta wuxuu ku saabsanaa beeraha iyo sidee u shaqeeyaan waxaan ka soo bilaabnay beer walbo aragtaa ama geed walbo aragtaa waxa laga soo bilaabaa in ciidan la soo diyaariyo markii ciidan loo soo diyaariyo ka bacdi in lagu rido inantii ama mirtii markii lagu rido ka bacdi caradii in biyo yar lagu daro si ay u soo kobacdo meeshan waxa loo yaqaanaa xarunta barbaarinta dhirta lagu soo barbaariyaa markay dhirtii soo diyaarsanto soo baxdo noocan isku bedeshaa soo dhawaada noocan naqataa xaq u siko soo wareegada kale inta saaka caradii xagga aan ku soo diyaarinay kadib waxaan ku soo ridnay mirtii waxay isku bedeshay inay soo baxdo hadda geedkan aad arkaysaan waa liintii noocaas iyadoo ah maalmo kadib inay weynaato ay soo istaagtaa rajaynayna ka bacdina waxay isku bedelaysaa mid weyn oo noocan oo kale ah mid weyn oo noocan oo kale isku bedelaysaa saa aragtaan waxaan ka soo bilaabnay in caradii eberkeeda meel aan ku soo shubnay liintii mirteeda aan ku soo ridnay iyadoo yar aan aragnay haddana ay weynaatay muddo kadib markii la barbaariyo xoogaa ay joogto bacdana laga jeexaa iyadoo caradeeda is wadato beertii weyneed oo loogu talagalay inay ku baxdo la geynaa marka hadda waxaan arkaynaa geed yar oo qumba ah geedkan yar waa qumba abtikan waxaa la dhahaa geedkan waxaa la dhahaa qumbaha asoo yar waaye markaas hadda bilaaw uu yahay weli ma gaarin xilligii oo dheeraan lahaa qumbaha sidaan ku naqaano qumba geed nuuce waan dhahnay geed aad u dheer waaye dhirir badan uu leeyahay geedaha kale waa ka dheer yahay markan qumbahii isoo bilaaw ee waaye waa geedihii mooska ahaa mooska marka hore barbaarin badan oo soo maray asoo banooni ah marka banoonigii mooska markii laga soo gudbay hadda wuxuu taagan yahay beer caadi moos oo taagan beerta mooska geedka mooska wuxuu ka kooban yahay ilaa 4 qaybood qaybta hoos waxaa loo yaqaanaa banooni caleemaha waxaa loo yaqaanaa folio gacanka mooska marka soo baxo waxaa loo yaqaanaa gacanka ku dhagan waxaa loo yaqaanaa shakad oo qayb u kala xiran ilaa iyo dhowr 10 xabo gaaraya marka ayadana waa qayb kamid ah mooska qaybaha uu ka albaxo wow maxaa abti geedka ma taqaanin may yaa sheegi kara aniga haye soo xasuuso haye ma sheegi kara geedkan qasab miya sabuul haye adna ma aqaan ma taqaanaa soo geedkan qasab idan qasab ma ahan mooska aan ka soo hadleynay qayb kamid ah waaye markii mooska laga goosto intaana soo harta inta waxaa loo yaqaanaa banooniga mooska saano loo yaqaanaa mooskii markii mooska la gooyo oo ka dhammaado kana soo hara kan waxaa la dhahaa marka banooniga la ciyaaraya maahan waa banooni mooska loo isticmaala magacaygu waa cayni cabdinaasir waxaa maanta ku faraxsanahay inaan soo booqano sidoo kalena aan ka hadalno arrimo ku saabsan beeraha maanta beertan ba wax ka wadi karaa su'aalo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maanta waxaan rabaa inaan ku wareysto adoo maanta magacaad ma sheegi kartaa wanaagsan tahay magacaygu waa macalin maxamuud cabdisalaam maanta waxaan rabaa inaan kaa wareysto beeraha su'aalo qaar weydiin doonaa markiina igaa jawaabtida ka hadla wanaagsan tahay su'aalahaas waan ka wada jawaabi doonaa insha allah miyaana ciid guriyeen agtiisa ku taal wax lagu beeri karin ciidda guriyana agteeda taala waxbaa lagu beeri karaa laakiin way kala duwan yihiin carooyinka waxaana loo fiiriyaa dalagga markaasi lagu abuurayo ama lagu tabcayo haddii dalagyada lagu beerayo ay yihiin dalagyo u adkeysan kara caradaasi oo caro jilcan ay tahay ama carada xeebaha laga helo kaleeto sida muqdisho kaleeto geedahaas u adkeysan kara way ka bixi karaan caradaas oo kaleeto abti dhammaan beeraha si isku mid ma ay u baxaan dhammaan beeraha si isku mid ma u baxaan way kala duwan yihiin
geedaha qaarkood waqti badan ay qaadanayaan ilaa ay sanadii sii jirayaan qaarkoodna waqti kooban ay jiraan markii waqti kooban kabacdi ee dalagga laga goosto ayaga dhan waa la guraa meesha waa laga nadiifiyaa haddana kuwa kale lagu bedelaa beeraley ahaan caqabadaha aa wajahdid maxaa waaye sideen u xalisaa beeraleyda horta caqabad badan ay wajahaan caqabadaha dhanka biyaha biyo yarida markaad inay biyaha ku yaraadaan abaar inay sababto inay dhacaan dalagii ay beerteen in oo cayayaan ay ka cunaan oo kaleeto dhibaato ay ku keento sax in dalagii cudurro oo ku dhaco kaleeto waa dhibaato kale jirta marka dhibaatooyinkaas wajahnaa laakiin waxaan ku xalinaa inta badan beerta aan joogno beer ceel leh waa ceelkaasaa biyihii waraab haddii aan u baahna ku isticmaalnaa waxaa kaloo jirta cayayaanada iyo waan buufinaa sun loo tagana ku buufinaa saasaan ku xalinaa wixii cayayaanka ama wixii caqabadaha ugu badan ee na soo wajaha halkaasaa soo dhowo beerta meeqa maalin ayaa la shaqeeyaa beerta maalmaha laga shaqeynayo waxay ku xiran tahay waxa la tabcaayo iyo waxay isa yihiin haddii waxa laga shaqeynayo ay yihiin dalagyo waqti badan qaadanaya shaqadooda maalin kasta in laga shaqeeyo waraabintooda ama in cayayaankii laga buufiyo iyo wixii lamid ah in laga shaqeeyo waqti badan la gelinaya haddii ay yihiin waxyaabaha iska caadi ahna sida geedaha waaweyn geed miroodyada kaleeto waqti badan ma la geliyo waa iska fududahay hawshooda laakiin shaqooyinka ugu badan waxa lagu bixiyo waa shaqooyinka markii mooska laga shaqeynayo maalin kasta waa la shaqeeyaa beeraha mooska sidee baa lagu ogaan karaa waqtiga ay midhaha soo go'ayeen miraha xilliga ay bislaadayaan way kala duwan yihiin geedaha ama dalagyada Soomaaliya laga beerto haddii ay yihiin geed miroodka markuu bislaado waxaa lagu ogaadaa inuu kalarka isbedelo kalarka miraha inuu isbedelo oo noqdo jaale xigeen oo kaleeto geedaha qaarkoodna sida dalagyada caadiga kaleeto galleyda iyo waxyaabaha la midka ah waxaa lagu ogaan karaa inay bislaadeen xilligii gurashada ay gaareen waxaa lagu ogaan karaa in caleemaha geedka isbedelaan ay isku bedelaan kuwa qalalay beeraley in noqdo mararka qaar way adag tahay maxaa waaye wax ugu adag markii wax la beeraayo sideen u xalisaa beeraley ahaan qofka duu beeraley yahay wax ugu badan la wajaho caqabad badan jirta dhibaatooyin badan laga maraa markii beer laga shaqeynayo qofka magaalada jooga wuxuu arkaa raashinkii ama dalkii diyaarsan laakiin dhibaato badan laga maraa xagga waraabinta kontaroolka cayayaanka haddii ahaana cudurrada ku dhacaya laga kontaroolo iyo waxyaabo badan oo dhibaatooyin badan ku dhaca dhirta ama dalagyada aan beerano kuwaasoo dhan waan ku xalinaa dhibaatooyin badan ka marna laakiin waa xalinaa sida ugu badan xal badan u raadinaa haddaba inaad beeraley noqdo maxaan u baahanahay haddaa rabto inaad beeraley noqoto waxaa u baahan tahay inaad u diyaar garowdo dhulkii beerta aad tagto dad beeraleyna aad la tashato si shaqadaada beerta aad u guda gasho inkastoo caqabado badan ay ku wajahi karaan xagga biyaha inay biyaha ku yaraadaan ama biyo aaweyso ka dhici karto maadaama sanadihii hore biyihii wabiga markasta la heli jiray waqtiyo dambeeyna biyihii wabiga la waayey xoogaa dib u dhaca wabiga marar qaarkood iska qalalo marka xoogaa biyaha caqabad ka jirta iyo cayayaankii beertii soo weeraraya waxyaaba noocaas oo kaleeta marka waxaan rajeynaa inaa haddii aad beeraley noqonayso wax badan aad u diyaar garowdo ilaahayna ku fududin doono insha allah markuu weynaado cayayaanada u ilaalisaa cambaha markuu geed weyn noqdo oo miro dhalo waxaa inta badan cuna shimbiraha waxaa kaloo cunaa daanyeerka marka igan waa laga ilaaliyaa waqti badan la geliyaa shaqaalaha jooga oo inta badan laakiin waxa inta badan la waardiyeyn karo waa shimbiraha iyo maxaa ku dhahaa iyo cayayaan kaleeto sida maxaa ku dhahaa daanyeerka kaleeto isagana waa aad u imaadaa oo beerihii markii cambaha bislaadaan kaleeto aad loo arkaa هذا بلقى داير ما عرفتي داير داير كورن داير كورن dadku wax ka soo xadaa budbuda dadku wax ka soo xadaa hadan markii dadka mamaato ku soo xadaa qof wax ka kama soo xadaa mamaato ku soo xadaa ay moos ana beertan mamaato ma taale moos yaale moosku cuna mamaatan cuna mooskana cuna mamaato cuna ay ada moos ma cuntay moos ma cuntaa waxaan cunay mooska meeqa cuni kartaa maalintii maalintii meeqa moos cuni kartaa saddex xabo bisa ay ma sha Allah sidee baa beeraha loo ilaaliyaa waqtiyada xun sida roobka zaidka ah dabaylada iyo duufaanada iyo wixii la midka ah waa su'aal isweydiin mudan
xilliyada dabeelaha ama xilliyada duufaanada ay kici karaan horta waxa ilaahay u wato waaye laakiin cimilo ahaan waxaa jirta dad khubaro ka shaqeeya saadaalinta cimilada intaan Soomaaliya joognay duufaano way dhaceen meel badan ay ka dhaceen kala duwan haddii u badnaato dhinaca gobolada bari duufaanada ka yimaado badweynta badda cas marka kala duwanaansho way jirta dhulka ah dabeelana way jiraan laakiin waxaa lagu xakameyn karaa haddii aan nahay beeraleyda gobolka Shabeellaha Hoose ku nool waxaan isticmaalnaa in geedo waaweyn beerta marka hore lagu soo xeendaawo si dabeelihii yimaado ay kaga celiyaan geedahaas waaweyn laga hortago in dabeelo yimaadaan ama waxyaabo la mid dabeelahaas oo kaleeta saasaan kaga taxadarnaa weligaa beertaa dabeelo ma ku imaadeen ama duufaano way dhici kartaa marar qaarkood xilli xagaaha marka la gaaro kaleeto waxaa laga yaabaa in geed taagan oo dhaco geedo badan soo daataan mirihii ay daadiyaan qaarkood dabeelo daran awgeed way dhici kartaa marar qaarkood waana dhacdaa sida caadiga xilli xagaaha oo kale u badanta oo koonfurta ka imaanaysa dabeesha sidee baad ku go'aansataa markaad beeraha beeraysid sababtoo ah marmarka qaar cimiladu waa ay daran tahay markii beer ama shaqo beer la galayo waxa ugu horeeya la bilaabo waa in la doorto dhulkii wax lagu beeri lahaa kabacdi la doorto dalagii ku habboonaa kabacdi go'aan la qaadan karaa markaas dalagaas in la beero iyadoo aan loo fiirinaynin cimilo marar qaarkood waa dhici karta in cimilo loo fiiriyo sida xagaayo kale waxyaabo ku habboonaa jirto oo si fudud u adkeysan kara biyaha badan ama roobka badan ama dabeelaha u adkeysan kara kuwaasaa la beeraa waxaa loo fiiriyaa marka dhulka carrada nooca ay tahay haddii carrada ay tahay carro jilcan khudaartoo kale lagu tabci karaa geedaha waaweyn waa laga ilaaliya carrada jilcan haddii ay jiraan khudaar yaryar waxaa jirto hoos loo tabco sida karootada bataatigo kaleeto oo xididada laga cuno ama maxoga kasaafaha kuwaasoo kale marka la isticmaalo waxaa la isticmaala carro jilcan carrada jilcan waxay sameynaysaa inuu dalagii hoos u fido oo si nadiif ah dalag fiican maxsuul fiican laga helo ma noo sheegi kartaa sheekada ugu la yaabka badneed aad la kulantay inta aad wax beeraysay horta qofka duu magaalo ama meel beera ka shaqeynayo oo kaleeto la yaab badan waa la kulmi karaa waxaa noo qosol badin la yaab badneed in qof ka mid ah shaqaalaheena oo beerihii inuu ka shaqeeyo aan qaadanay oo daabo loogu talagalay in loogu isticmaalo beertii lagu bacrimiyo in oo soor ahaan ama mushaari ahaan u karsaday qaarkood mushaari ay ka dhigteen ayagoo aan ogeyn waxa ay tahay ayagoo aan akhrinin marka waa la yaab waayo waxyaabaha qaarkood wax dhici kara oo dhibaatooyin kale nafsiyan hataa dhib keeni kara oo qofka beeraleyga beerta ka shaqeynayo kaleeto qofka shaqaalihiisa inuu dhib ku dhaco marka waa iska dhib badan yihiin marka inta beera lagu jiro la yaab waa la arkaa waana badan yihiin la yaabka qalbkaad oo mashiinka waa sheegaysa haddee fiilalkaa laabto maxaa kale aad ku beeraysay waxaa la isticmaalo waa makiinad oo makiinadii hore ee viyaadka ah ama digsiga waxa lagu falaa haddii ciladoodo waxaa noo shaqeeya dad ka shaqeeya oo mechanikistayaal ah ayaga noo farsameeya oo ka shaqeeya shaqadaas haddii taas laga maarmi karana badanaa gacanta la isticmaalaa oo wixii fudud oo gacanta lagu isticmaali karo yaabooyin gacanta lagu isticmaalo aa loo isticmaalaa sidee dhirtu baxdo maxay u baahan tahay xamse su-aalaan ku weydiinaa adig saa u noolaato maxaa u baahan tahay waxaa cunto u baahan tahay laba biyo cabtaa u baahan tahay dhirtu waxay kula mid tahay qofka bini'aadamka oo kale oo qof dhirtu waa noole waxay u baahan tahay biyo inay hesho iftiinka qoraxda inay hesho space inay hesho nafaqo ku filan dhirtaas way sii noolaan kartaa haddii intaas ay hesho sida bini'aadamka uu u baahan yahay nolosha noocaas oo kaleeta dhirtan waxay u baahan tahay in la xalaaneeyo xanaanada loo baahan yahay in la siiyo nafaqo in la siiyo in biyo ay hesho iyo inay hesho qoraxda iftiinkeeda si ay usii joogtayso ma soo weeraraan beerta xayawaano duurjoogta ah sida libaaxa iyo waraabaha anaga beerteena waraabo ma soo weeraro libaaxna ma imaada laakiin waxyaabo kale dhibaatooyin kale nagu hayaa jira sida maxaan ku dhahaa doofaarka kale oo mooskii hoos ka cuna qaybta hoose waxyaabaha soo weerara waxaa ugu badan oo xayawaanaadka caadi noo imaado waxaa ka mid ah in xayawaanka loo yaqaano doofaarka oo naga cuna mooska qaybta dhexe banooniga loo yaqaana oo cuna marka isagana waa la tacaalinay oo meelaha qaar waxaa u dhignaa sariiqyo oo ku dhaco saasaan kaga taxadirnaa iyo waardiyaal habeenkii beerta ka shaqeeya oo waardiye ka ah oo naga waardiya cayayaankaas
ma noo sheegi kartaa shimbirta si looga celiyo beerta? shimbirta mooska badanaa aad mu soo dhex gasho markoo bislaaday bisi cuntaa laakiin beeraha kale oo aan leenahay galleyda kaleeto ama misagada kaleeto ay soo weerartaa shimbirta dad aan ka shaqeeya ayagana beertas inay waardiyaan shimbiraha iyo cayayaanada kale ay ka waardiyaan oo lacag ku qaataan ayagana kutriyoonkooda ka hela maasanta ay faa'iidaystay carruurta kaleeto inay ka faa'iidaystaan waa maasanta ramla yidhisay adiga iyo carruurta asaagaaga ah waxaan rajeynayaa inay ka faa'iidaystaan waan ku faraxsanahay kasta kugu soo booqanay beertaada waan rajeynaynaa inaa taladaada ka faa'iidaysano waa maasantahay waa maasanta salmaan soo dhawow santahay macalin maadaama noo sheegtay arrimaha beeraha wax ku saabsan caruurta Soomaaliyeedna aa u faa'iidaysay waxaan ku leenahay maasan